meesha iskooladana aan security laakiin meelahooda dhan security police waxbay keenaan laakiin ubadada canfarta lagu tala galay in la dilo in la dakhro in laga soo aargosto maxaad innocent ciyaalkeeda jaahilka ee waxba u warwayn dad iskool dhiganaya maaha marka waxa imanaya iskoolada hortooda kuwii cundhafacoyo cadaytu laga soo wada guraadhan ayaa magaalada nooga buuxa maxaa noo hadhay nolol iyo xayaad maxaa noo hadhay adduun waan ka hadhnay lacag waan ka hadhnay shaqo weydiis waan ka hadhnay politiigin waxaan siyaasada waxaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaanku xidhiidhayaasha dhegaystayaasha radio city soo gaad iyo gabdhaha walaalaha ee maanta halkan barnaamijkan ila daadahaynaya marka hore gabadha walaasha waxaan ku soo dhaweynaya halkan Sucaad waan ku salaamay walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaan jecelnahay in aan caawa hadduu ilaahay yiraahdo aan barnaamij khaas ah oo ku saabsan fiidiyoyada ugu dambeeyay ee hadda soo baxay inaan ka wada hadalno fiidiyoyadaas oo ah fiidiyoyo mataqaanaayay dadka taabanaya oo dad badan lagu cambaaraynayo oo lagu xumaynayo oo soo saarto gabadha Zainab Leila fiidiyo haddaan soo qaato kugu horeeya wuxuu yahay fiidiyoga ay maslax ay ku leedahay 24 saac wayna dalka kaga baxdid Djibouti waayo waxa tahay terrorist waxaan jeclaan lahaa inaan ka wareysto arrinkaas Sucaad soo dhawow oo bal wax nooga sheeg fiidiyogaas gabadhaas ay kaga hadlaysay maslax walaal Sucaad waan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adiga iyo dhageystayaashaada iyo ummadda islaamka walaal Sucaad gabadhaasi anigu ma oranay magaceygana ugu ma yeerayo waxaan ugu yeeraa Nasiis waa Nasiis weeyaan Nasiistan ugu yeeraa marka waxa weeye maslaxa kaga baxo 24 heures marka ay leedahay gabadhan waligeedba way iska eriyataa dadka marka maslaxu ugu ma horeeyo dad waxa jirta ay dhulkoogiyo ku iska degan ay leedahay oo Djibouti kamida ha laga raro oo ha laga kaxeeyo istaraatiiji bay noo tahay horta haddaan hadalka bal maslaxa ii dambeeye aan kan ku noqdo dakhil mar waxa jirta ay ka hadlaysay dakhil oo meesha goobacad la yiraaho oo Bakaara ay ka hadlayso ay leedahay ajrada marka la dhageysto waa la fahmayaa ay ku leedahay imikada waa ina laga raro dadka meesha laga kaxeeyo because waxay noo tahay bay ku leedahay istaraatiiji bay noo tahay oo halkan bay ku leedahay waa istaraatiijiga iyaga oo canfaro dhan bay ku tiri dhageyso canfaro dhan ma aqbalaysay tiri dadkaas hadii meesha laga kicin waayo waxay ku tiri canfaro ya halkee loo wada dadka markay leedahay ka kiciya hageeyay bay leedahay waxay ku deema lama garanay hal Itoobiya ka yimaadeen bay dadka waa qaxooti la soo dajinay qaxooti maaha goobacad Bakaara meesha ku leedahay hadaan ku sheego waa goobacad shishadeeda waxa weeyi waa xuduudka Itoobiya iyo kala dhaxeeya dakhil marka laba xuduud bay leedahay dhinaca Galaafi oo dhinaca Yubaki sida umaro Galaafi ah iyo dhinaca goobacad oo dhinaca goobacad buura weeyaa sidaas oo waxa weeyaan Bakaara bay leedahay anaku waxa la magacay Ali Baraka ma loorin jiray Bakaara ay leedahay halkaas dad ba iska degan goobacadna dad ba degan marka walaashay haddaan sheekadan ku soo qaado
goobaca dad waxaa degan Soomaali ah Soomaali degan waa la yaqaana waa dadka ciisaha ah mar dhexdiya inaad maqlaysid 3 nin baa la dilay 3 nin dad safar ay ahaayeen oo iska degan goobaca oo lagu soo dilay halkaas iyagoo maxaan ku yiraahday rasaas la dhacay oo dad la keenay waxa dilay nawaajib hadoodii waxay ku tiri anaka waa la dhageysanayaa ajradana waa ka la dhageysan doonaa waxay ku leedahay istaraatiijiyada nootay hana naga rara dadkaas waxay ku tiri anfarka Djibouti oo dhan bay ku tiri hadday isku degaan ma yeelanayta dadka oo meesha laga kiciyo maahina sheekadiisa u socotay sawiradoodii wuxuu yiri meesha ku jiraan komisarka dakhil wixii oo dhan waa la dhex galay odagii waxay la hadleen toos berober ninka la yiraahdo ee Belgique degan berober waxa weeyaan berober ninka la yiraahdo abihi aw iyo adeerku waxa ka maaqaan ayaa ka maxaan ka suldaan ay yiraahdeen meesha goobaca odagii banaanbax uu sameeyay afartii soo baxay way soo wala baxeen waxay ku leeyihiin dadka hana naga raro waa dad ilaa qarni degana war addu ka ilaahay ka wax aragne waxay ku leeyihiin anagu sidii cundufiya cadeeyta marna hana naga raro dadkan oo dadku waa dad meesha iska degana goobacadaasi aniga waa iska daabalta dadka aad taas ma marna waa tii bukaaca ka hadlaysay goobaca dhexdeeda asaceela inan yar iyaal xaafad ciise la baxeenba dadkii halka deganaa ciise iyaal yar oo iskool joogo meel ku ciyaaraya lagu dhex tuuray maxaan ku raahayay baashi muxuu ahaa miino lagu dhex tuuray inankii yaraa miinadii way ku dhacday daktarka Djibouti la keenay raadiyoga bukaaca ka dhageysta marka dib hadaad ugu noqotay sheekada oo dib loo daalacdo goobaca marka dibta ay dadka ku haysan naagtaas iyo afartay kicinayso iyo inta la xiriiran oo dhanba walaalay dib bay wallahi ku hayaan masrax maxaad ka sheegi masrax markan ay ku leedahay 24 ha kaga baxo waxa weeye waa ilaaqo iyo waxay baratay iyo ragga isku xiran yihiin ay isla shaqaystaan ee dadkooga ah ee dhageysanaya ee wax kasta u fulinaya iyo masrax ku leedahay 24 ha kaga baxo masrax waxa uu sameeyay idmo u dilin masrax waa nin haduu hadlay uu hadlaya xeerna uu leeyahay xaqna uu leeyahay Itoobiya markuu jeeyo dadkiisa la leeynayo inuu hadlo waana meeshiisa waxay ka dhacaysay anfar haduu yirina maxay doonaysan yiri anaka ciise dhanba wata ciise halaaya ciise hadila soo kuwa ku Djibouti kule halaga kiciyo dhulka hana naga saar sawtan leh ku Djibouti kule hana naga saar iska daawa maslaxa Itoobiya ka yimid dagaal ugu soo hal qabsanayso su'aaday in adeer sheekadan ku wada in adeer aday iskale mar dhaxdiya maslax markuu heesay afar ku heeso markaas ay buubuunaysay tir maslaxa been loo sheegay maslaxa maxay sidan la yiri maanta markuu Djibouti yimid wuxuu noqday terrorist weligeedba naagta naasiisada weligeedba ciise waxay ku sheegtaa maxaa ku raay terrorist weligeed waa sheekadeed anigu way Itoobiya dhig halka dhig kuwii Djibouti bay rabinba sheekadeeda kale haddaan soo qaad wata iga yaabisay aan fajacay nin baa mar ka soo wacay waraabalay Djibouti telefoon baa u soo dhacay sawde kusoo baad ma maqlaysaa waa ku maqlay kusoo telefoon baa u soo dhacay telefoonka markuu soo dhacay waxay tiri hello waa uu ka qabtay ninkii uu hadlo markaas uu ka yiri ina yar waraabalay baan nagu dilay ina yar aroos u socda 40 nin baa dishay oo ciise aad dishay waa ina yar bay ku leedahay anfara ay 40 nin yaa dishay buu kaleeyay waxa iga yaabiyay iga fajiciyay telefoonka looga soo diray Djibouti ma booliis bay ahayd dib booliiska anfartay noqotay markaas ay ku leedahay walla isku dhamaani walla isili maxay soo Djibouti taas ugu meereysay shalay toolana de maslax markii kale waxa la laabatay lahayd anfar oo dhan baa ka caysan maslax hadii laga saari waayo Djibouti anfar oo dhan baa ka caysan bay ku leedahay ta kale way iga sii yaabisay waxay tiri sheekadan hadda maatay tiri koombaanigu hadda maado shaqadayada markaasaan galaynaa bay hadii maslax laga saari waayo naaski wadana cabbe bay tiri aan soo matagi marka su'aadaadan ku dhiibay adiga way wareysanahay waxa weeye maslax sheekadiisa inta kuma joogtay iyadu waxay tiri maslax isagoo Itoobiya ku dhashay ku tiri Itoobiya ka hadli
iyadoo Djibouti baan ku dhashay leh iyay ku tiri waxaan ka hadlayaa Ethiopia marka ma goormay gabadhani ay caafimaad qabtaa goormay waalan tahay waxbaan isweydiiyay ku jirtaa mugsoon waa qof dhan oo la leeyahay dhulkaagi ha ka hadlin Djiboutina maslax idmo u dilin waxa weeyaan terroristan ma aha heesaha lagu gowaabinayo dadkana isagu haduu heesaha ku gowaabiyo tolkii iyaduna heesay furatay ay ku leedahay waliba ilaa herar iyo hawaas baan qabsanaynaa ilaa iyo Djibouti dakhil annaga la qabsanayn marka heesahani ma kama mid ba xalaal oo mid ba xaraam ah wasu'aalaha la isweydiyo sucaadi maxaad ka oranaysaa arimahaas waxa ku leeyahay sucaadi sheekada ku haysta waa wax lagu qaslo waxay ku leeyahay waxa ka dhaadhacsan waa sheekada xasan fiilo Djibouti baa anaka iskale Djibouti blog naagta naasiisadan blog kuma ogolaba Djibouti ina sheegayso kuma ogolo oo ka respect kuma ogolo Djibouti ina iyadu leedahay ee cafar leedahay miyayna ku oran Ali Sabiix sabti bal ad sabti bal oran jiray miyayna ku oran kad kaman disbox waan leenahay ku jiray Djibouti maslaxana inuu ka hadlo ma rabto Ethiopia inuu ka hadlo ma rabto because haduu ka hadlo Ethiopia ما Djibouti hadii igu timaadaan ka argoosan bay ku tiri Djibouti hadii igu timaadaan yaan ka argoosan maslax waa heesaa weeyaan oo meel kasto looga yeedhutay karaa marka waxa weeyaan qof wax laga mamnuuci karayo ma aha hadiiba meel kasto looga yeedhay ilaa waqooyi fanaaniinta heesayaan maxaa maslax diiday inuu heeso maslax iyada waxay ku leedahay waxay ku leedahay ani Zaynab baa la iraa afartu ana iga dambaysa anigu waxaan leeyahay naagtan bal cafartay soo wadaysa la arkay sucaadi bal cafartay dagaalamaysa dad gudbinaysa Djibouti hal arkay dadkan dhageysanayay cafartoodan dhageysanaysa naagtan waalan marna kule sucaadi adaa ku haystay bal sheekada dhinac kale aan kaaga rogay mar waxa iska dhigtaa inay Ismaaciil soo baxayso inaad ila aragtay iyadoo hadeertu leh inay irbeebe u footeynayso u ololinayso aad moodaysid umba hadana arkaysa iyadoo la Ciise hala dhameeyo Ciise hala dilo abihin cuna jisi inay ku khasaysaa maaha Republic de Djibouti baan moodayna bay ku tiri waa Republic de Ciise marka waxbay kala saaraysaa Ciise dhuka mala weeyaan adoo Ciise dhuka lahayn Djibouti waan taabacsanahay waan ayidsanahay hadii uu Ciise leeyahay laakiin Djibouti aanu Ciise waan ma ogoli waa aynkaas weeyaan waxay jecel beerka jecel anu waxaan oran lahaa naagta naasiisada ah halaga qabto umada Ilaahay dadka dhageysanayana afarta dhageysanaysa horta fifi way dhageysataa gabadhaar fifi ku xiran maxaa way ku xiran tahay afar badan baa ku xiran Djibouti moogta oo dhageysta afar badan baa ku xiran Djibouti dhageysta moogta dadkii cudur baa inaan afar yaa yiri waa Djibouti jooga xanuun ay nagu beertay naagtani dadanu cadoonin bay cadin noo gelisay say nagu wada Ciise sidana baan dadkii iskaga cadoonaa bukley way laqsiis way laqsiisa dadkii kiniinay laqsiisa kiniinkii laqsiisa ugu darnaa waa kiniinkii markii dhawad inankii lagu dilay Tajoora maalintii la dilay sucaadi 14keegii baa la dilay 13keegiina ajrada ka dhashay aniga haya oo break cad weey inta soo gashay live ay aytantay bay tiri guruud imakay ku dil imakay Tajoora wax ku dilaysaa bada ina yarba u soo galay inankii yar markuu u soo galay uu la sheekaystay sucaadi wuxuu ku yiri أنا كاين كوري إمك لا أركي دونا بير هذا وحديني وينو ولا أركي دونا بير أنا تجورة جوجا بير أنا تجورة كفيلم بيري دي عجلتي سو كجرتا برا بجدا لا يسكيجي كجرتا هذا ما صحدنا وريكورد يعني جايتها يا ناكر وبتيروريست مركا وبتيروريست يلا بتيروريست ده وده صوتهم كله صوتهم إسكتها كوا إتوبية na Djibouti ay ka dhaxleedahay ba hadii wax la sameey waayo bay kule waba hadii bay kule waba naag maxaan kule jabhad baa waba jabhad subta hubkii haysata terrorisada dadka terrorisiinaysa adigu ha hadlin aamus arkay hadla arkay Ciise sheegta in dadka u soo gala baraha bulshada inaad aragtimo waxa ku raaxaysataa gebigoodba waa inay Ciise aayaan waa inay maxaan ku raayay Ciise dhul ma la yiraahiin وأنا عيسى بلك لا دعان ضد أصله قلا يودن إن ذي لا أرتين كلامي. نحن قالوا لي تاني ضد الله عيسى مركز لصه هذا شتر هذا أنا أقول دوني ماشو مسلح لها هلا مريضك هلا لا يو
iniga weeyaan canfare waxa isku geystay iniga weeyaan waxa dadka soo dhaweystay inasaa la iniga lawaad istaashinta dabka shida horta waxaan baasalida waxaan ku oran lahaa horta faraskana matii lugtana matii waxa isdiriraya waa dad dan baa naga dhaxaysa canfar iyo ciise dan baa ka dhaxaysa weligeena waa isdili jirnay shaqo horta kuma le waad waalanta waxa ku soo dhexgeliyay waa waalida waxaad ka raacday de waxay ka raacday waalida naagta Sucaada ma ku sheegaa look at me iyo bigdam iyo de way nagu farabateen bigdam iyo look at me iyo balaaye la baxay iyaduna imika waxay noqotay look at me sidaan hadlay look at me ciise hala diro look at me way nagu noqotay maxaa sameynaa dad waa look at me way si wanaagsan ya maxaad ku dari waxaan walaashay ku darayaa naagtan laga fiirsan naagtani waxay rabtaa dagaal inay canfar iyo ciise Djibouti ka rido maanta waxaan leeyahay ha loo fiirsado macaarad iyo mini way ogtahay canfar way tashatay macaarad iyo maxaafad iyo kuwa isku xidhan runta ma la rabaa mise been baa Sucaada la isku sheegay inaadeen runta loo baahay waan diidanahay aniga horta khaas ahaantayda bolitiga Ismaaciil horta ma jecli kow laakiin danta dalkayga markay noqoto iyo danta dadkayga markay noqoto waa alwaxdana waxay ku tahay dagaal ayuu yaa ku dhimanaya dadkayga ku dhimanaya hooyaday baa ku dhimanaysa walaalahay baa ku dhimanaya meeshaana meel dagaal qaadi karta ma aha meeshaana meel loo ordo iyo meel iyadaaba ololeysaba de wixii olol la raba anagu waan ka horjeegsanayna waxaan leeyahay look at me iyo waxaan leeyahay naasiisada juudaanta ah waxaad doonti ku hadal waxaad doonti samee ballan waxaan kugu qaadaya anoo macaarada inaan maxaafid ba noqonaya anoo diidan Ismaaciil anoo diidan bolitigiisa Ismaaciil laba dadka niga cisho wallahi iyo billahi hadduu Ismaaciil nigu soo sii daayo arximaad sheegay meel lama gasheen maxay ku dhacday inay ku tashuuraha ila gelin ku yiraahiin maxay ku dhacday obaka ila gelin inay ku yiraahiin maxay ku dhacday gooba caday dadkii la deganay halka nafti ilaah u keeneen ee mar leeyihiin bakaaraha laga raro ee ciyaalkii yara miino lagu dhex tuurayo nabadu maciisaha un baahaya wanaag maciisa un baawada wariya ilaahay yaqaan halkee loo socdaa oo halkee loo socdaa adduunyada waa gadoog aniga meel loo socdo ma garanay laakiin nabada kullayba waa lagu yaqaan laakiin Djibouti dagaalka ma dhacay waa la weydade wax kasta waad wadeen waad furid soo weerartay waxaad qaadaysiin ma jirto wadankana waa ilaalsanaynaa maxaafad iyo macaarad waa loo dhanyahay waa la ilaalinaya mididaada uu isku jabtay adiga waxa ku soo raacay waa ku salaam walaal Sucaada waa maasantayna si wanaagsan aad iyo aad baad mahadsantahay jazakallahu khayr dhageysta waa niga yidhaaheen markii hore markaan hadlay heestii ku socotay baa lay soo tuuray waa anigii niga yidhi dokci buudha waa nila dagaalantay maalintii hore imikana erar baa nii soo socota waa kanti dhageysta waxbana lagama raabi karo anaku dhan lagalama qaadan karo ma dhici karto abadan fartu ina wax la soo gaadgaadiyo waxa way dhacdaa way ka xanaaqdaa maya liila lama karo looma soo dhawaan karo ista wallahi erarkee muli uri rasuk maraacan erar iyo mulu
ciyaalkoogii dhulkooga kama hadhayaan allah 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 ku soco wallaahi goobacad budha waa debne goobacad budhaa nacam nacam dad sidaa nacam dagaal iyo waxa ka foorasta ma aha ciise waad garanaysiina debne si fiican baad u garanaysin waa kan qolo kastaba waxay sheegaysaa wuxuu yahay nin bayoonu waxa iyaga lama qaadan karo nagay hayso nagay lubbi nagay agaad kay dhacaa waa yaabina wayo taa wax gala kala nagay raad khalla wadankeyga qofna uma soo dhawaan karo waa ka waa qofna uma daynaysan dakhal baa leenahay maxay waa idin soo wada sheegay gabi xabad baan idigu soo sheegay haddaad dhagaleedin dhagaa furta afarna waad garanaysiin heesta si fiican u dhagaysta si fiican gabuuti budha waada dhagaysta dhagaha fura cayayaanow dhagaha fura anu hadalkaygaba heesta baan igu furana dhagaha furta wata joora lak asal wayaan مسوي عصب إلى كلا قعدنا ما بيحتا ما دعيسو أنا كنا لما تابسكر وحيا كنا لما تابسكر مين دعانو ما يليلان ما دعانو ما يليلان تحكم ماي هاي سمرة ما تيجي دقيسة دقيسة سمراني من دقيسة kuwa yagu yaryaro la eryado maaha kuwa loo soo dhawaado نعم dhulka waan kugu dhimanayaa baan umaan oran waana kugu dhimanayaa waana wada dhimashadii ambal abeelayseeda ambal afarigaad gaba kale dhex beeda waxaa la ininkaan laga yidhaahana waad garanaysin beedii jaarnibaa kula noqonayaa iyo ciladaad keentayna waa kawa laga waramaya dhegayso
واكاس خلاص اساسينك عفري نفس دغاتي هاغدي ودي لكن دغون بالعوق حلسوا بير لف لما فري يومي يبلن ان شاء الله انا حقان سولولتني دغنا كاني هسغي مي بريفي مريوه ولا المساج يهربانا حسبودوده تلفوني هاي زينب هو تلفون كاني ها ولا لو وقت ما جاء طعم بس دايم الو وعليكم السلام هيا يب لا فلا ينتارجه منها هيا يب هاي محد هاي شتف ها انا كاد لديها فرما رحم نبدي المنتداف كاداف سيرتي اسكي وداف يعني يمكن وين بري حسين فيرو كدافك سويكي وين المنتدى داف هايسي نبديد وحلا محد بريقي وهرد وحلا محد سيدو إلهي أدونك الدنيا اللي بحسناي أدونك سيدو كريه أي عيسى أي محد عفر مركز سوقات كان جريين تبلينا آوي وهذا الكيف الحسوسين يسا هاي كسعو